ku dhaqan magaalada dalka UK magaalada London gaar ahaan waa in assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ku suganahay London waxaan hadda Ilaahay yiraahdo ka qayb geli doonaa barnaamij deeq loogu aruurinayo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen oo ka dhici doona hoteelka Millennium maalinta Axadda ah 9 bisha fiidka Axadda ay soo galayso Isniinta. waxaan rajaynayaa reer London iyo reer UK guud ahaan inay ka soo qayb galaan barnaamijkaas oo dadkooda tabaalaysan ay gacan siiyaan oo ay deeq u fidiyaan halkaasna insha Allah aan dadkeena wax ugu qabano intii karaankeena ka soo qaybgalkiina aad u muhiim noo yahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا المكسة شوكتين بولالكي كاميرا محمد نورة وحاربا ما تينا تفافلو مقال كانت صدى وتين زيادو جدين عبد الرحمن عبد الشكور حفلة يوم قبل قابيي وحونو مقع دري إنو دادك صوماليا لعقو أرورنا يو وحيرو اوغين ودادك صوماليا مرقاتيكا هايين دور جيرو هوري عبد الرحمن جيب كيسينا لعقو كود عضي مركب دن انلو لغو وريتيي ومعاونا إلهي بان كوكو داريي adaan ku weydiinayaa miyaad maqashay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo tuulo Hiblaayo wax ka qaybinaya xitaa caag saliida asagoo siinaya ma maqasheen wararka xanta waxay sheegayaan maantay oo xogta hoon helay xafladda oo qabanaya ninka la qabanaya ee qaban qaabinaya hoteelka iyo hawlaha ka dambeeya iyo Cabdiraxmaan ba laba qaacimin inay yihiin go'aankoodu inuu yahay wixii meesha ka soo xarooday inay jeebka ku shubtaan ummadda Soomaaliyeed ee London joogta ayaan baaq u diraya baaqaniga gaarsiiya بالله عليكم وحاني كعود صليا مقال كشير قرية وقارسية ري لندن عبد الرحمن عبد الشكور يددك اووته حفلدا قبن قابلية وبين ري لندنو وحي دوريان لعاكتا يارور صدان إني جيبك كشبتان والله بالله تالله إنا بين دين شيقين لعاكتا يارورينيان لعاكا يومت صومالي دو أرورينيان ماها حكتاس أنقو وان هايا والي قبر ورمي عدين تيدن هدن كون شيقيا iskaba daaba inaan taa cadaynkaaga keeno Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ilaa waqtigaad ogeedee la doortay xilka loo doortay lacag buu aruurinayay macaawin oo haayay markab dhan oo macaawinaha lagu wareejiyay gadaal ugu laabtee ma maqasheen hal tuulo xitaa caag saliida geeyay babaya sawirradii la iga soo qaaday waagaas oo aan ku soo boost gareeyay warkalkaal ayaa yaala cuntadii maraakiibta saarneed in lagu dhex gadayay bakaaraha suuqa bakaaraha ayaa markabkii lagu gadiyay dadkii bakaaraha ku gada jiray ayaa laga sii iibiyay wallahi dad baa sawirro iga soo qaaday qofkii reer warkalkaala gadaal ha u raaco warkalkaal wuu arki doonaa sawirrada xilligaas aan soo boosta gareeyay ninkii marka shalay saa samaynayay oo aan ognahay oo waqtigii ka horeeyay doorashadii xilligeediina furtay ninka la yiraahdo teleefankii tuugsiga ee xisbiga la ii qaaraama aan galay ninka la yiraahdo dhahayay ninka la yiraahdo aan galay doorashada lacag doorashada ku galo ummadda Soomaaliyeed hay siiyeen dhahayay maanta xaflad baan qabanayaa lacagaana ku aruurinayaa anigu san uga yeelaa Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ummadda Soomaaliyeed way taqaanaa horta ninkaanu yow la hadlaa horta asagu kaalay marka uu hadlayo ma wuxuu la hadlaa dad uu san aqoon dadku waa dad yaqaanadee dadku waa dad Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed qof waliba wuxuu galo iyo wuxuu gudow yogeen wallahi dabban bad moodaan ilaahay baan kugu dhaariyay qaybta hoose komandhiga nugula wadaagada taqaanid Cabdiraxmaan tuulo oo macaawina ka qaybiyay arwa ka saamaanta qofkii soo sheegay hal tuulo wariyaa fiiri gadow tagay meel kastoo tagay cid kastoo tagay inta waxa media ku jira igu sawir asagoo ku sameynaya ummadda baahidu hayso ee abaaruhu hayaan ee gobolada jooga soo guryahooda ugu tagaya ee ku sameynaya ninka la yiraahdo igu sawir la sameynaya sawir la gelaya ku tuugsanaya $1 aan siinayn ninkaanu marka wuxuu doonayaa xilliga doorashada soo socota lacag la'aan baa ciishay beerka madoobaaday wuxuu doonayaa doorashada soo socota lacag doorasho ku galo xasan sheekh maxamuud iyo tiimkii macaaradka ujeedka loogu dhiibay ninkaanu jagadaana waxay tahay inuu qoyo qofba meel uu ka doontay way tiimkan tiim wada shaqeynayay ahaayeen dad isku xiran bay ahaayeen xasan sheekh maxamuud xilliga uu guuleystay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur asaga meel dhaqaale ku jira doortay halkaan sababta xubinta loogu dhiibay oo ay ugu garteen dadkii badbaada qaran isku sheegayay waxay ahayd ninkaanu bal horta faqriga ka baxo faqri baa daashaday ha ka baxayd igama xumaan inaan caayena maaha walaalkay waa sidaas shala telefonaad furatay
ummadda Soomaaliyeed ku soo wacaysa hal doolar isoo tuura lahayd ilaa maanta jilaafadii iyo tuugsigii aad wadaa war sharaftii baa dadka ka qaaday deegaankaadiina waad ceebaysay saas maahan adeer macaani adeer siyaasaddu maahan haddaad corruption rabtid ood corruptionaysta tahay waa ku ogahaye 30 milyan haystaa jooga waddadii u maramardee xitaa baddiyaad gaday ummadda Soomaaliyeed ku ogeed wax kastaad sameeyday waa dhargilaad aduu yaad wax siidaa waxa ayaan dhaxdaas ii sheekeeyay xilligii doorashadu socotay raggii staafkiisa nin kamid ahaa magaciisa inaan sheego dooni maayo wallahi beenidii ma sheegayo qodobada uu iga sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa kamid ahaa inuu Cabdiraxmaan yahay nin danaysta dantiisa kaliya inuu yaqaano bas askarigaas wuxuu u sheegay raggii u soo jabay inuu kamid ahaa xitaa maalin kasta markuu meelaha soo istaago uu leeyahay askar baa la iga dilay uu leeyahay askartii laga dilay xitaa magbow ka qaatay lacag baa laga siiyay dawladdan ka horeysay aye waxaas inuu ka naxayo askarta ka dhimatay maahan wuxuu ku rabay jilaafo dhaqaalo warnaga aamusin la yiraahdo buu raba afka la qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur marka ugu dambeyntii baaqan u diray waxay tahay adeerow gacaliyo goormaad ka baxaysa gacanta la horsanayo goormaad noqonaysa nin caadi oo siyaasi oo talent leh aqoon waa leedahay laakiin waxa ka qaldan wadadii meesha wadada mar lahayd baa qaldan la taliyayaal fiican samayso dad wanaagsan samayso siyaasaddaada kobci sanad haddaad guul daraysatid waa inaad ogaataa sanadka dambe sanadkii hore waxaad ku guul daraysatay laakiin ka waran wixii shalay aad samayday haddaad maanta ku soo celinaysid guulaysan maysid shalay waxaad ku guul daraysatay ayaad rabtaa haddana berri inaad samaysid ayaa rabtaa haddana saad dambe inaad samaysatid inaad sii samaysid deesaad ku guulaysanaysaa haddaad isbeddel samayn waxaan ku leeyahay siyaasaddaada dib u habayn ku sameey dadka la taliyayaalka beddel miidiyahan tirada badan oo soo istaagaysid dadku ha ku jeclaadaan nin dadku jecel yahay oo loo xiiso oo hadalka uu sheego oo noqdo hadal run u dhow noqo kina dad noqotid qof iska hadla mikrofoonkii la soo hordhigaba inta wajiga u taaga wixii qalbigiisa ku jira iska sheega waxaas wax macquul maahan ummadda Soomaaliyeedna waa kugu baratay Cabdiraxmaanow 5 sano ayaad miidiya taagneed 15 codna waad heshay guul darro kaaga weynu ma jirto inaad wadadii marka maanta ku sii socotid ee sanadka dambe aad heshay 5 cod wax dhici kara maahan daadan wax bedelin wada saan wax ka bedelin sidaas baad noqonaysaa hadaan arrinka Cabdiraxmaan Cabdishakuur halka uga gudbo waxaan rabaa inaan ku daba qabto dawladii federaalka waxay mamnuucday al-shayaadiin dadka wax ka qora ma ahan dafiiriya dadka wax ka qora ma ahan al-shayaadiin website-yada ay wax ku qoraan al-shayaadiin dadka u shaqeeya ma ahan dadka horta wax hadalkiina si fiican u fahantaa la rabaa waa dadka wax ka qora annaga geli karna reewar kalkaan hadaynu nahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo nimanka wax ka soo qora ayaa geli kara مثلا oo kale maanta qarax haduu ka dhaca magaalada Muqdisho hadaad warkalkaal ku soo boosti gareeyo wuu ka handadaya waxaad galaysaa dadka ay doonayaan inay meesha ka xiraan marka qodobkaas horta saa in loo fahmo waay waxaan rabaa marka laba qodob aan rabaa inaan ka hadlo nimanka dawladda federaalka ee magaalada Muqdisho fadhigoodu yahay ma awoodaan dadka inay ka xiraan beejadka iyo website-yada u shaqeeya ee saxaafadda xorta ee madaxa bannaan wax qorta anigu ma rabo kuwa al-shayaadiin u shaqeeya hal xira maahane hal jabsado meel wax ku soo gudbiyaan hawaayana iyo xagga naga dhig laakiin dadka aaminsan dawladnimada ee al-shayaadiin nacab wax ma ka qori karaan al-shayaadiin hadaysan wax ka qoraan dawladda federaalka ma ka xiri kartaa dadka magaalada Muqdisho jooga ee baraha bulshada wax ku qora way xiri karaan oo way ka cuna qabatay karaan sababtoo ah shirkadda internetka siida ayay la xiriirayaan basun saas xarigoodu waa kaasun hawaday ka saarayaan ma ahan xitaa ma awoodaan hawada inay ka saaraan laakiin waxay ku cuna qabatay karaan inuu qofkaas internet helin gaaladan samaysatay Facebook iskale Mareykanka wax u rushaynay inay u gudbiyaan macluumaad ah page-kaas nimankaas waxay siiyaa inay marka gaalada ugu daba gambadaan dhankaasna way dhici kartaa oo dhahan dhanka nagala saacido sababtoo ah adduunka wadan waliba wuxuu leeyahay YouTube u gooriya iyo Google u gooriya ayuu leeyahay oo dawladda markaas u jirto
ay labadaba maamusho Soomaaliya anagu wadaynu nahay baraha bulshada malihin waxba kuma lihin satellite-ku qayb nooma kireysna way de markaad qaybta qaadanaysid Google-ha waa ina satellite-ka qayb ka haysataa soo kireysataa oo aad xibin ka tahay weeyaan marka anagu wadaynu Soomaali nahay YouTube-na malihin Google-na malihin dawladdanadu ay kontaroosho malihin anagu hayaacdo way wax anagu hayaacdo weeye qof waliba xurmo iska soo gashtaa marka ma awoodaan haday maanta dhici lahayd in dawladda federaalka oo YouTube-ka iyo Google-ha iyo waxa dhan iyadu kontarooleyso taas way dhici lahayd laakiin taas hadda ma dhici karto kaliya waxay marka ku andaco karaan oo qofka ay cunaqabateen ugu sameey karaan inay Mareykankan wax u rusheynayay xiriir la sameeyaan qofka macluumaadkiisa loo gudbiyo Mareykan iyo Google iyo Facebook-na ay soo baaraan ama Google qofka baaritaan ku sameeyaan xitaa aysan ku degdegin kadib in laga xiro halkaas ayaa laga shaki qabaa in macnaha ay wax ku xiri karaan waxaan rabaa marka inaan ku daba qabto arrinkaas oo waa cadaalad darro leeyahay sababta cadaalad intuu soo istaago saa u leeyahana waxba meesha ku jira waxa dhici doonta arrinkaas oo hirgalo oo dawladda Mareykanku ay aqoonsato waxay soo gudbiyaan in hawada ka saaraan haday u dhacdo oo dawladda Mareykanka ay ka helaan boos ka helaan ku takrifal baa dhacaya maanta iyo kale aniga ayaa cadaalad wax ka sheegaya anoon ugus iyo waxba ka sheegin iyo al-shayaadiin Mareykan buu gudbinaya ninka al-shayaadiin buu wax ka qoray macnaha miidiyaha in la isku abuyuuso oo la isku caburiyo ayay soo wadaan dawladda federaalka ay maanta jirto qofkii dhaliila waxa dhici doonta inay ugu marmarsiyoodaan inuu ninkan al-shayaadiin ka tirsan yahay waxa uu faafinayna wax qaldan yahay ujeedka marka maantay saxaafadda loo caburinayo oo la leeyahay haddii qarax dhaxayaan laga hadlin haddii qof ay nimankaas dilayaan laga hadlin waxa loo leeyo loo marmarsiyoonayo ayaga ceebahooda ayay doonayaan inay ku qariyaan runtan idin sheegaya ceebta ayagu leeyihiin ayay doonayaan inay ku qariyaan oo qofkii wax ka qoraba inay ka gudbiyaan report jeedka saan loo leeyana horaan kugu sheegay waa inay media ku caburiyaan ayagu awoodii dawladda ay ku takrifalaan awoodii saxaafadda ay ku takrifalaan qofku inuu amarkooda qaato oo qofku wuxuu sameeyay yiraahdaan isagoo uu sameeyo oo uusan qofku xor noqon oo uusan noqon qof asagu wuxuu arkay qori kara al-cadaala hadduu awood leeyahay oo nimanka iskaga celiyo intuu dhuuso mareeb tago oo dagaal cilaamiyo oo furunta inta ay rakabta lagu geeyo rakabta looga soo celiyo sawirro ku soo galo Muqdisho kuma soo laabteen waan ordu weynay waan soco weynay aan orodno way waxa wada al-cadaala adar ka dhageysan mayno anagu media anagu waa sharciyeysan yahay hadaynu na reewar kalkaal cid ku soo dhiire karta ama soo hunguriyay karta ma jirto baasaboorra nagala haya saxiixiya nagala haya wax kasta nagala haya codad baa nagala haya xiriir dhabaynu sameynay iskuul baynu u galnay oo daraasad baynu ku sameynay shirkadda Facebook aan waxaanu ka haysanaa ID number ba ka haysanaa wax kasta ka haysanaa laakiin dadka la ciilayo ee la doonayo in la caburiyo ee qorsagaarada lagu qabto waa wariyaasha magaalada Muqdisho ka soo hadlaya xaasha warayagan waxaan leeyahay kuwa leen ku aqoon samaysta al-cadaala mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad walaalo waxa aad sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud ku soo dhiibay wax ummadda Soomaaliyeed ka iibsamaya maaha saxaafad adigu aad ku tagrifasho oo waxa adigu aad doonaysid kaliya ku soo qortid annagu ka yeeri mayno inta badan waxa la sheegaa al-cadaala inuu kamid yahay dawladda hadda jirta dadka gacanta ku maamula Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay maqaar saaro meesha iska taagan yahay laakiin ragga dawladda hadda jirta gacanta ku maamula ay asaga iyo mahad salaad iyo ay yihiin ragga noocaas ay yihiin ayagu gacanta ku maamulaan shimbirtii halaatiye la yiraahday haadaysa baso al-cadaala waliba waxa lagu sii sheegaa inta badan inuu nin dictatoriya wuxuu isugu doono maskaxdiisa ka soo baxay nin sameeyay inuu yahay sababtan ku sheegaya dawladdan ka horeysay dadkii macaaradka ahaa ayuu kamid ahaa dadkii la wareegay idaacadii qaranka ayuu kamid ahaa dadkii wuxuu kamid ahaa dawladda federaalka ee markaa jirtay qayb kamid ah ee qaybtii ninka la yiraahdo nabad iyo nolol ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo media dadkii ku dhibaatay jiray ayuu kamid ahaa madaxweyne dhan oo dal ayuu wuxuu aadminkii dadkii u qaabilsanaa ka qaaday in idaacadda qaranka waxba looga qori jiray madaxweynaha filadan baa wax lagu soo qori jiray waxa ka dambeeyay arrinkaasna al-cadaala waxa sababta hadda Xasan Sheekh Maxamuud oo asagoo u yahay maqaar saar oo al-cadaala dadku ku jira wax u maamulayaan waxa weeye
ninkan abaal weyn buu hore u soo dhigtay nimankan saxaafadda iyo miidiyaha iyo badbaado qaran dadku inay bartaan oo la baabuuniyo oo miidiyaha laga dhiso raggii ka dambeeyay oo kamid aha alcadaalo marka waxaan ku leeyahay anigu horta bariyan ku taageeri jiray hadal macaanidaada ayaa ayaan isirtay ayaantii aad xaranbuuriya halkaa tagtay ee halkaa heshiiska ku soo qabatay wallaahi bilaahi tallaahi waxaan dhihi jiray kun wiil oo alcadaal oo kale ayaa Soomaaliya ka dhaliya hadal macaanidaada iyo qaabeeshinkaada way soo jiiday waagaas laakiin markii aan ku dhabagalay ee aan si fiican baaritaan kuugu sameeyay waxaan ku ogaaday nina meel u soconina tahay waxaaduba kaliya inay miidiyaha igu sawirkaa tahay wariyaad ahaa jirtay saxaafadii baad fahansan tahay marka kaamirada la sii jeediyna mas baa tahay kaamirada markii la soo jeediyna awliyaad iska dhigtaa dadku waa ku barteen marka waxaan leeyahay dowladda federaalka saxaafadii xortaahada ayaa loo baahan yahay mid waa in ku taageersanahay oo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan cadaynayaa mid inaan dowladda federaalka ku taageersanahay nimankaasu baraha bulshada ay wax ku qoraan oo ay wax ku soo gudbiyaan oo ay dadka ugu hanjabaan oo ay codadka ku soo duubaan markii la yiraahdo hebel waa dhintay waxaan rabaa idaacadahaas in la kansalo in la joojiyo waan rabaa kuwaas bootadu ka socoto laakiin dadkii shacabka ahay ee xogta u gudbinaya dadka kale dhagoolayaalka dhahayay maanta meel heblayo dagaal baa ka dhacay weliba xitaa dowladooda ku jabta dhahaya dowladda ku guuleysatay in la yiraahdo wax magac nimankaas leeyihiin sooma qaadi kartid anigu waa ka soo horjeedaa magaalada muqdisho inuu qarax ka dhaco ama qof madaxa lagu jabiyo yaa la soo tabin in la yiraahdo ayadana waan ka soo horjeedaa arrin xaasha marka waxaan idin leeyahay arrinka gadaal ugu laabta wax ummadda ka iibsami kara noo keena annagu taa yeeli mayne idaacadaha magaalada muqdisho jooga dad mamnuucdaan kuwa bannaanka jooga ayaadnan u taageerin taa ha la ogaado marka inaad noqoto maskiina miskala fuula leh dadka keliya aad ka awood badan tahay ee magaaladii jooga ee waddankii jooga keliya inaad ku tagrifashid ama ninka la yidhaha awoodda saxaafadda aad ku tagrifashid ciddii adiga ku soo dhaliishay inaad nimanka ku shaabadaysid waxa dhan oo doonaysidba waa intaase annagu waynu diidnay saxaafad xor aynu u baahannahay adduunku maanta 2022 la joogaa facebookii baa shaqaynaya instagramkii baa shaqaynaya meel kasta dadku wax ku soo gudbi karaan dadka maanta lama caburi karo waxaan ku dhiilaa marka maradu iyo ka dhicin arrinka dawladdu apologize ka bixdaana ka laabataan dhiilay ugu dambeyntii waxaan ku soo gabagabeynayaa baaqi reeladhan mar labaad reelandanow shirka ninkaasu qabanayo waad u jeedaan wuxuu yahay adinka ayay idiin taala haddaad doonaysiin inaad caawisiin oo aad dabaqyo u dhistiinna hadda keep going haddii kale tii hore lagula xisaabtamaan dhiila aad iyo aad baad maadsantihiin waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaa codsanayaa muuqaalkan xaqiiqiisa sii 5 farood iyo calaa calsaar waxaad iga gaarsiidaa ninkaan baaqaan u dirayo leeyahay war ummadda ka daa baryaha badan